meesha ay ka socoto dhismaha mashruuca dhismaha dekedda Garacad oo hadda meel feeskiisii hore meel gabagaba marayo wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Xasan oo iyo wafti uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin maamulka caafimaadka ama isuduwaha caafimaadka degmada Jariban iyo madax sare oo ka socda wasaaradda caafimaadka Puntland oo ku jiro caafimaadka asaasiga ama primary health care-ka Dr. Cabdirasaaq aad baan ugu faraxsanahay wasiir adiga iyo waftigaagu ku soo dhawaada deegaanka Garacad gaar ahaan goobta uu ka socdo mashruuca dhismaha dekedda Garacad oo sida indhihiina ku soo aragteen feeskiisii hore meel aad iyo aad u gabagaba marayo haddii alla idmo saa aragteen dhismaha dekedda Garacad meel wanaagsan buu marayaa feeska koowaad oo ka kooban beertinka koowaad oo ah 100 mitir baa hadda waxaa ka dhiman in lagu xiro goomayaasha ama fender unitska la kala dhexgeliyo jambiga dekedda iyo markabka waxa kale oo diyaar ah jambigii labaad oo asna haddii alla idmo qorshe yahay in lagu soo gabagabeeyo dhismihiisa inta sanadkan haddii alla idmo lagu guda jiro guud ahaan mashruuca meel wanaagsan buu marayaa wasiir iyo wafti gacmo furan ku soo dhawaada wasiir soo dhaw alxamdulillaah rabbil caalamiin marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maareeyaha dekedda Garacad ama dhismaha dekedda Garacad degmada Garacad iyo dhammaan hawlwadeennada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya dhismaha dekeddan Garacad oo aanu maanta booqasho ku nimi runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta oo maalintii ugu horeysay aniga ii ahayd inaan booqasho ku imaado Garacad isla markaana aan indhahay ku soo arko hawlaha ka socda dhismaha dekedda Garacad waxaa kaliya oo aad xaqiiqsan kartaa marka aad timaado goobtan ay ka socoto shaqada juhdiga iyo hawsha la geliyay qaybtan koowaad ama feeskan koowaad dhismaha dekedda Garacad oo waliba xusid mudan in ay ku dhisan tahay isku tashi ay Puntland iyo dadkeedu ay isku tashadeen dekeddan inay dhistaan runtii waxay muujinaysaa dadku hadduu isku tashado oo isagu isu tago oo wax qabsado waxa uu qaban karo intay la ekaan karto ayay muujinaysaa waxa xaqiiqa dekeddana marka ay dhamaato in ay qayb weyn ka qaadan doonto koboca dhaqaalaha Puntland iyo gaar ahaan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya runtii waa mashruuc aad u weyn waa mashruuc ay ku faani karaan dadka reer Mudug iyo dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba waxaan rajaynayaa mashruucani inuu sidii loogu talagalay uu dhamaado waana ku socdaa runtii oo annaga indhaha ku soo aragnay meesha uu marayo maareeyuhuna uu noo sharaxay shaqadu sida ay u socoto waxaan aad ugu rajaynayaa dadka ka shaqeynaya iyo maamulayaasha iyo dhammaan dadka ku hawlanba shaqadoodaas in Ilaahay u fududeeyo mashruucanina uu dhamaado sidii loogu talagalay haddii Ilaahay idmo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan indhaha ku soo arko imaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi